iyadoo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo 20kii bishii Febraayo ee sanadkan uu daahfuray shirka dib u heshiisiinta siyaasiyiinta beesha Sare sida weyn uga soo horjeeday siyaasadda iyo dhismaha maamul goboleedka Jubbaland iyo hoggaanka sare ee maamul goboleedka Jubbaland isla markaasina ay shirkaasi ka soo qayb galeen siyaasiyiin kala duwan oo ka soo jeeda beesha Sare iyo qaybaha kala duwan ee beesha ayna 16kii bishan ay si wada jir ah u soo saareen hoggaanka sare ee maamul goboleedka Jubbaland iyo siyaasiyiinta beesha Sare inay isku afgarteen arrimihii khilaafka siyaasadeed soo kala dhaxgalay siyaasiyiinta beesha Sare iyo maamul goboleedka Jubbaland ayaa munaasabad lagu maamuusay heshiiska ay wada gaareen hoggaanka sare ee maamul goboleedka Jubbaland iyo siyaasiyiintaasi waxa uu maanta ka dhacay xarunta Daawad ee magaalada Kismaayo ugu horeyn shirkaas oo laga soo saaray ilaa 10 qodob oo ay ku heshiiyeen siyaasiyiinta iyo waliba hoggaanka sare ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa goobta ka akhriyay afayeenka maamul goboleedka Jubbaland Cabdinaasir Saraar Ma waxa labada dhinac si saraaxad iyo kalsooni ku jirto uga wada hadleen dhammaan qodobadii khilaafku ka jiray waxaana gabagabadii la isku afkartay qodobada soo socda kow siyaasiyiinta iyo bulshaweynta beesha Sare ee reer Jubbaland waxay taageerayaan heshiiska la gaaray waxayna si buuxda u aqoonsadeen dawladda iyo hoggaanka Jubbaland lambar 2 in bulshaweynta Jubbaland iyo dawladdu si wada jir ah isaga kaashadaan cid kasta iyo wax kasta oo colaad hurinaya number 3 in la dedejiyo dib u dhiska iyo isku dhafka ciidamada qaranka iyo kuwa Jubbaland loona sameeyo hoggaan isu dheelitiran oo mideeya mid walba isla markaana la taageero howlgalka AMISOM qodobka afraad in beelaha deegaanka si cadaalad ah u wadaagaan awoodda maamulka iyo hay'adaha madaxa bannaan iyo kuwa xukuumadda sida garsoorka cadaaladda arrimaha bulshada nabadgelyada iyo siyaasadda number 5 in la dhammaystiro habraaca sharciyeed ee degmanimada buurdhuubo iyadoo la waafajinayo dastuurka Jubbaland in la abuuro guddi isku dhaf ah oo ka kooban dawladda kumeel gaarka ah dawlad goboleedka Jubbaland UN-ka iyo AMISOM kaas oo ka shaqayn doona sidii ay ciidamada sabca sharaf lagu soo celin lahaa looguna biirin lahaa ciidamada kala duwan ee qaranka iyo dawladda goboleedka Jubbaland waxaana sidoo kale goobta ka hadlay dhinacyadii heshiiska ku dhexmaray magaalada Kismaayo ee xarun goboleedka Jubbada Hoose ugu horeyna waxaa goobta ka hadlay Dr. Cabdi Shira Warsame oo kamid ah siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeday siyaasadda iyo dhismaha maamul goboleedka Jubbaland maanta waxaan halkan isugu nimid inaynu maraka wada noqono soona dhaweyno heshiiskan looga gudbayo khilaafkii iyo ismarin waagii muddada soo jiray waxaa xusid mudan in heshiiskani uu yahay mid dhinacyadu ay si toos ah ugu wada hadleen una wada gaareen una si buuxda uga madax bannaanaa faragelin shisheeye ha noqoto mid dhexdhexaadineed ama mid dhaqaale heshiiskan looma samayn in cid la isugu bahaysto waxaa loo sameeyey in bulshada Jubbaland la mideeyo looma samayn in cid kale xaqeeda lagu qaato waxaa loo sameeyey in cid waliba ay xaqeeda hesho heshiiskan oo ka kooban 10 qodob waxa uu dhinacyada saaraya waajibaad la doonayo in sida uu yahay loo guto ugu dambeyn madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo ku hadlay hoggaanka maamul goboleedka Jubbaland soona gunaanooday shirka dib u heshiisiinta ayaa sheegay in qodobada shirkan ee maamul goboleedka Jubbaland uu dardar gelin doono isla markaasina uu soo dhameystiri doono waxaan u qaadayaa waxa ila jira 100% inaan fuliyo waxa aan kari waayo daaqadayda ka batan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha istidaacada qofku leeyahay ma dhaafo qofku inta awoodiisu ay tahay tabartiisu ay tahay sida ay tahay intaas
waxaan rabaa inaan idiin sheego anigu waxaan rabaa muddada maamulkayga uu jiro inaan ka shaqeeyo nabadda soomaalidu waxaan odhan lahaa haysu tanaasusho qof kasta oo soomaali ha qaato inuu compromise iyo tanaasul u sameeyo cidda walaalkii ee wax ka tabanaysa qof kasta oo soomaaliya yuuna noqonin shisheeye riix ee ha noqdo sokeeye kalkaal iyo dad soo dhaweeye maxamed qaasim cali waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaayo.